السلام عليكم. muuqaal ka yara duwan kuwii aan halkan kusoo gudbin jirnay ama aanan ka duwanayn runtii ma hubo inuu ka duwan yahay in kale laakiin waan arkaynaa inta aan ku guda jirno muuqaalkan muuqaal faa'iido u ah inta daneynaysa afka carabiga sida caadiga markuu qof ku nool yahay dal ama la nool yahay ummad kale waxaa haboon in uu inta kale la wadaago ugu yaraan faa'iido luuqadeed dadkaas uu la nool yahay waxaan halkan kusoo gudbinaynaa erayo ama mustalaxaad muhiim ah oo ay warbaahinta carabta isticmaalaan intaas kuma ekaanayna kaliya waxaan sheegaynaa meesha ay ka imaadeen qisada asalka qaab taariikhi ah ereygan meesha uu ka imaaday sidoo kale magacyada ay carabtu u yaqaanaan wadamada caalamka kuwa ugu muhiimsan waxaa jira wadamo ay carabtu u yaqaanaan magacyo gooni u ah ayaga oo qofka aanan carabka ahayn una fahmaynin qof aanan carab ahayn una fahmaynin markuu maqlo magacyada ay u yaqaanaan carabtu wadamadan sheegi doono mustalaxaadkaas iyo eray bixintaas muhiimka waan u imaan doonaa aan ku bilowno wadamadan ay carabtu u yaqaanaan magac ka duwan magacyada ay dadka kale u yaqaanaan wadamada caalamka haddaan soo qaadana dawladda ugu horeyso jarmalka carabtu jarmalka uma yaqaanaan jarmal warbaahinta iyo dadka caadiga kama maqlaysid jarmal ama sidoo kale xitaa kama maqlaysid Deutschland waxay u yaqaanaan Almania jarmalku waa Almania المنتخب الألماني حلك جرمالكا المستشارة الألمانية أو أنجيلا ميركل ألمانيا وجرمال فالعديد من اللاجئين السوريين في ألمانيا بدأ مشاهدينا الكرام أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة للانتخابات النيابية اللبنانية في ألمانيا دولة درس كلا جرمالكا أستريا عربت وحقويقان النمسا الجمهورية النمساوية النمسا أستريا والنمسا ودنك كلا السويدن عربت السويدن وحقويقان السويد سي اوفيشيال انا markay u sheegayaan waxay dhahaan mamlakatu Suwayd boqortooyada Sweden Suwayd sidoo kale wadanka Switzerland carabtu waxay u yaqaanaan Switzerland magacaasay u yaqaanaan Switzerland wadanka kale waxaan ku jirnaa Europe waqooyiga Europe hadaan aadno wadanka Norway carabtu waxay u yaqaanaan Norway waxa ugu dambeeya Jim wax yar ayuu ka yar duwan yahay magaca Norway waa النرويج دولة كلا وغريغا عربتو غريغ وحو يقانان اليونان سيدا تركيدو كلا تركيدو غريغ وحو يقانان يونانستان كال عدو شاقي إستان تن مالك كانان مقعسي يقانان يونانستان سيدا سعودي كلا يقانان سعودي عربستان ومقع تركيدو يقانان سعودي عربستان ودمادا كلا تصالحان ودنك جابان عربتو وحو يقانان اليابان maraykanka amriika way dhahan way adeegsadaan laakiin inta badan markii wax la qoraayo ama warbaahintu waxay adeegsadaan magaca alwilaayat almuttaxida ama alwilaayat almuttaxida alamrikiya alwilaayat gobolada almuttaxida midoobay United States alamrikiyadana waa of America alwilaayat almuttaxida alamrikiya wadanka shiinahana waxay u yaqaanaan طبعا الصين صاد تصالة ودمada kale ee magacooda la tarjumi karo luqadaha caalamka inta badan ay isticmaalaan carabtu magac ayaga ay u yaqaanaan ay ugu yeeraan tusaale ahaan wadanka Ivory Coast Cote d'Ivoire carabtu waxay u yaqaanaan saaxil al-aaj xeebta faanta maroodiga wadankaas oo caan ku yahay maroodiyada sidaas darteed Ivory Coast iyo Cote d'Ivoire waxay u baxsadeen saaxil al-aaj ay u yaqaanaan sidoo kale wadamada aan soo sheegnay magacooda la tarjumi karo sida koonfurta Afrika oo kale waxay u yaqaanaan Januub Afriqiya waqooyiga Korea Shimaaliya Ingiriiska oo kale المملكة المتحدة UK boqortooyada midowday المملكة المتحدة markaan ka soo gudubno wadamadaas erayo siyaasadeed oo muhiim ah anfacayana inta baranaysa afka carabiga hadaan ku bilowno baryahan waxaan aad u maqalnaa أحزاب تمدك تفوق أو الأحزاب اليمينية أم حزب يميني الأحزاب اليمينية المتطرفة أحزاب تمدك تفوق حق جرتا كلمة متطرف أم حق جر وإن قفكو أما كوح إن أي واحد نعيرو قدكتو إن قيب كقاضته أو كلمة حتى
كلمة متطرف صومالي حتى هو أديكستا كلمة واحد بدن أيان مقلنا أما نحنا كله ضرف كاسقبة ضرف ككوبات ضرف إلى ضرف وطرف أو جيس مثلا قف كان مركل ليا كله ومتطرف ديني أهان إن دين تأقيب كجد جيه إنه معناه داير كايستو إنه الطرف كايستو كله سيدو كل أحزاب تان جرمال كهدا كجرا كل النازيين تعصب لقط المام إنيهين أحزاب ميدك فوق حق جرأة الأحزاب اليمينية المتطرفة أو لتكؤة المهاجرين مهاجرين تدك إماضي المهاجرين سيدو كلا جالية مسلم كالجاليات المسلمة أما الجاليات الإسلامية جالية مسلم أنوسي قدبنا وحلقو مقعابه فيتو وحبدنا يان مقلنا سيدو كلا دولة هبل أيها أديكستي فيتو أو حق النقد حق بورينتا إن دولتها شنطة مريكان إنجليز فرنسيس روشكا يشينها أي ليهين بورينتا قوان لقاري إني حق ليهين بورينتا قوان لقاري طبعا وحق بقى أو أيغا إساسيين دولتها كوكولي سدقالكي لبادي أدونكا لغو داريشينها وحق أي إساسيين كلمة فيتو أصل كذا واللاتيني معنى هذا وانك استاقي مايا ميلايو فيتو أيو أديكسدي أو حق النقد أنا قدبنا سيدو كلا صهيونية وحبدا أيان مقلنا كلمة صهيوني العدو الصهيوني عدوغا صهيونيغا معناها مقعو وحكا إماضي بورتا لغو مقعابا بورتا صهيون كتالا دافع قدس أو مد أي يهود قدريان ومقع أي لبحين دقاق يهود لماتكي قرنيجي سقالي طبانات وكون سيديد بقوليو لماتكيديس كون سقال بقول مركي بلابنيسي أساس كذا كبادنا وحوها يهودي كنا على بريق يوروب يهود لغو مقعابا الإشكنازيين يهودو والله أيجا حتى وإسن عبيين يهودي كنا على دولك مسلمين تا جزيرة عرب تا أما ميلان كلا كنا على يهودان بريقا إيا يهود لغو مقعابا الإشكناز أو كوا روشكا كإماضي ودمدا كلا يوروب أدو مقعان دقاق الحركة الصهيونية على أساس بريق يوروب أو أي ليهين إن معناه ذو يهي مركان لنا صهيوني أيانا سيدي ليهين إن آن دولكاس النصب شيغانايو أرنق عجيبك أياه إن عربتو أيو أركان عيب يعني قفك عرب كمركو ليهي العدو الصهيوني أنت صهيوني مركي ليهين وحي لينا أيان إن وعاي أما إهاني سنايو هلكو يهود أيو كفانان يعني يهوديك إلا ده صهيوني أياتاي عادي أيو أركان سيدو كلا وح إسدابا مرين سياسي أما كوح مركي العقل لنسطو waxay ku magacaabaan غسيل الأموال lacag lunsi macnaha halkan loolama jeedo sida jumladu ay tahay lacag la dhaqaayo ma ahan waa isdaba marin lacag ayadoo la adeegsanayo wadooyin kala duwan sida sameynta shirkada aanay jirin hay'ada aanay jirin in wadooyin kala duwan lacagta la isku dhaafsado siyaasiyiinta iyo warbaahinta carabta waxay aad u adeegsadaan kelmadda الطابور الخامس oo la qisa cajiiba hadaba waa maxay macnaha طابور الخامس جملة سيدو كلا سيدي أقرانتهاي وي كدوانتهاي وحلولا جيدو هدان راعنو مقعة وصف كشانات طابوركو وصف أو صباح دي عيالكو مركا إسكول كصفتان وحلوكو مقعة الطابور الصباحي أما الطابور المدرسي عد كستور لين قشانا طابور أي كجرتا طابوركو وصف هدبا معناها الطابور الخامس أما صف كشانات وحلولا جيدا قف عدوة أو كنو الدولة كلا لكن وجودها الدولة داس وكنوا ليهاي كم ملاقايو فال لتكوا إسلا الدولة داس وكنوا ليهاي سيدا تصالحان عندها هدو جوغ سياسي صوماليات أما ورية كسوغان دالك صوماليا دالك لكن إتوبيا دفاعايو ورباهنتك دفاعاي سياسة ديدا وحلقو مقعابي كرائنو يهاي الطابور الخامس مقال كان تصالحان نكان سعودي وحليه سعودي وحاجوغا الطابور الخامس أسوأ أولجيودا ضد سياسة أهان تاجرسن إيران في أشخاص عندنا طابور خامس يلبس لبسنا ويتكلم بلهجتنا ولغتنا في أشخاص عندنا طابور خامس يلبس لبسنا ويتكلم بلهجتنا ولغتنا أنشاقنا ميشا وكايماضي هدبا ereygan wuxuu soo baxay markii ugu horeysay 1935 intii uu socday dagaalkii sokeeye Spain cidii ugu horeysay ee adeegsatana waxay ahayd General Spanish lagu magacaabo Emilio Malo
oo ka mid ahaa generaaladii wadaniyiinta Spain. haddaba xilli ciidankiisa uu ku siqay caasimadda Madrid ayuu yiri ciidankanagu wuxuu ka kooban yahay asagoo ciidankiisa dhiirigelinaya 4 saf ayaan ka koobanahay ayuu yiri, laakiin waxaa jira saf shanaad gudaha caasimadda Madrid oo si qarsoodi ah noola jiro, lidna ku ah taliska maaragsiga hanti wadaaga caasimadda Madrid ka jiro. 4 saf ee ciidankana ka kooban yahay waxaa shaneeyo rag nala jiro oo ku sugan Madrid. halkaas ayuu ka imaaday ereyga الطابور الخامس. aad ayaana loo adeegsaday dagaalkii labaad ee adduunka intuu socday iyo waliba dagaalkii qabooba intuu socday. markii dawlad xaalad adag gasho ama afgembi ka dhaco waxaa la adeegsadaa ereyga waxaa lagu soo rogay martial law oo ah laalida dhammaan qawaaniinta dalka. martial law af carabigu waa ahkaam curfiya, xukm curfi. tusaale inaad maqasho kale إعلان عن فرض أحكام عرفية في الدولة الفلانية بعد الانقلاب العسكري. وحلقو سورغي مارشال لو دولة هبل كتب أفجنبك ميلتري. انت بدن وحا لوغا دواقا ميلها اي كجيران دقالada labada 2008 يوكرين waxay gobolada xuduud kale la Ruushka uga dhawaaqday qaanuunka xukm curfi oo ah in qaanuun gaar ah lagula dhaqmaayo dhulkaas oo Ruushku qabsaday sida jasiiradda Qrim. هذا نسي قدبنا القوة الناعمة وحلقوا مقعابة soft power أود جلعسن وانا مفهوم مهمة مانتا. أود جلعسن وإن أذيقونا وح أود اللي يقانا قوة ميلتري أنا ذيك سنين كارديك تو أمضاها كالي إنه يكو احترامان قيم كاذا هرمر كاذا إنه كارديقان متقدرين مضان أما إن أود ذاس جلعسن أي كارديك تو in ay ummadaha kala saamayso kadibna ay la tacajubaan nidaamkaada iyo qawaaniintaada. tusaale ahaan Hollywoodka waa mid ka mid ah awoodaha jilicsan kuwa ugu muhiimsan maanta caalamka. Mareykankana ka dhigtay dhaqanka Mareykanka, cuntada Mareykanka, xirashada Mareykanka, labiska ay labistaan ka dhigtay mid caalami ah. in maanta ay jiraan dad aan weligood Mareykan tagin laakiin Mareykan ugu muhiimsan yahay dawladahooda. haddii wax daawanayaan waxay daawadaan filim Mareykan ah, haddii ay qiso akhrisanayaan waxay akhristaan qiso Mareykan ah. in saameyn uu ku yeeshay thaqaafada Mareykanka ay qofkan saameyn ku yeelatay, ama inay tahay dawlad qawaaniinta ka jirto iyo nidaamka ka jiro iyo hufnaanta ka jirto, sida tusaale Denmark oo kale loogu soo qaato hufnaanta inay dadku ixtiraamaan. sidoo kale awoodda jilicsan ama alquwa naacima waxaa kaloo loo adeegsadaa warbaahinta. haddii dawladdan ay leedahay warbaahin awood badan saameyn leh waxaa lagu tilmaami karaa dawladdaas inay leedahay awood jilicsan oo muhiima. haddaanu sii gudubna karantiilidda, baryahan allah naga badbaadiye waxaa socda fayruuska corona. wadamadu waxay raaceen si loo yareeyo faafidiisa in la karantiilo, meel gooni ahna la geeyo cidda qabto cudurkan. haddaba karantiilidu waa xajar saxi, almaxjar as-saxina waa la dhihi karaa in waxaan la karantiilay meel kale la geeyey waxaa lagu soo rogay xajar saxi ama almaxjar as-saxi. sidoo kale midabta koor sida nidaamkii ka jiray koonfurta Afrika oo kale waxaa lagu magacaabaa التفرقة العنصرية ama النظام الفصل العنصري. التفرقة العنصرية أما النظام الفصل العنصري oo ah dadka in loo kala qaado madow iyo cadaan. in la dhaho madowga waxaanay samayn qawaaniintan lagu dabaqo, cadaankana qawaaniin gooni loo sameeyo. aanu gudubna ereyo aanan siyaasad ahayn. dhiirigelinta tusaale ahaan taxfiis, qofku wax dhiirigelinayo waxaa lagu magacaabaa muxafis qofku wax dhiirigelinayo, dhiirigelintana taxfiis. qofka tusaale ahaan YouTube wax ku soo gudbiyo kale wax soo gudbiyo inta badan waxaa lagu magacaabaa saanic muxtawa ama muqaddim muxtawa ama munshi muxtawa. in markii warbaahinta kala duwan markay wareysanayaan qof YouTuber waxay ugu magacaabaan inuu yahay muqaddim muxtawa, inuu content sameeyo, inuu wax sameeyo, muuqaalo sameeyo. mawduucan ayaan jeclaysan inaan idin la wadaaga maanta. intaan ayuu ku egahay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.